mid waxa weeye horta waxaan taanideynayaa maqaanada safarka madaxweynaha oo ku tagay magaalada Kenya dawladda Kenya waxa leenahay hambaliyo labadan dal Kenya iyo Soomaaliland taariikh dheer bay wada leeyihiin xitaa waxa jirtay mar inaynu lacagta wada qaadan jirnay East African money markii la discover garinayay Kenya dadkii halkan ka kaxeeyay loo daramay waxa ahaayeen dadka reer Soomaaliland ay ahaayeen community oo horeysay ee degta wadnaha ama gudaha Kenya waxaan dadka soo jeeday reer Soomaaliland bay ahaayeen gacan weyn ba ka lahayn dadka reer Soomaaliland magaran saayay halgankii Jomo Kenyatta mawgi araaqi mawga gacan weyn bay siiyeen Jomo Kenyatta صاحبيه بدن بو لها reer Soomaaliland ka soo jeeda inta waxa jirta shufshadii NFD waxa joojiyay ra'iisul wasaare markaa Soomaaliya Republic Maxamed Xaaj Faraaci gaa lahu naxariiste caruusha dikalaarish waa taay ku dagaadeen dadka reer Soomaaliyeed halka ay qaybtoodii xuquuqdooda ku heleen maanta ay qayb libax ka jiraan safka hore horumarka magaalada Kenya waxaa soo markaa la eego waxay waajib ahayd mar hore in Kenya iyo Ethiopia inay Soomaaliya ixtiraafaan ana waxa weeye Soomaaliland ixtiraafkeedu wuxuu keenayaa deganaanshaha geeska ay ka mid yahay waa reer Soomaaliland dadka bilaabay Greater Soomaaliya fikradda Soomaaliya weyn markaa nimankan reer Soomaaliya Soomaali biski ay isticmaalaan halka bay ka abuurtay Hargeysa ka abuurtay hada heesaa aragtid Djibouti yaa halgamay dadka ku dhintay Soomaaliya oo halgamay yaa ka bixin jiray kirada iyo hurdada Cabdilaahi Ciise reer Soomaaliland baa NFD yaa wees jiray waxaan wax dhaqdhaqaaq aanu sameynay bay anagu aslan shanta Soomaali keena oo inaga qarsoonay inaan xuduudaha bedeli karno yaa laakiin biyay labada isku darsanay example ku ahaa yaa biyay waxay ragii xukunka boobay ee ka dhex saaray labada ra'iisul wasaare Cabdilaahi Ciise iyo Maxamed Xaaj Faraaci intii siixiyeen iyagoo qaawan iyagu ay ra'iisul wasaare qaatanay abiyus gareeyeen midnimadii Soomaaliya oo ku ilaa damaantii abiyus gareynaya waxaan u heliheen ayaa qabtay hoggaanka maanta wada aragtaayo waxa la u liitaa maanta Soomaaliya ugu liidata shantii Soomaaliland waa okay Djibouti NFD wada aragtaa ogaadeen aragtaa